مدن اسدجي عاود هذا بليز شرعي اسكو ديب وين سلام صاحبي الكسو دواada qaybtii labaad xalqadii ugu dambeysay musalsalka dhaxal qaybtii hore waxay noo joogtay markii la qabtay qays markaadada qaybta soo daawan waxa ka codsanaa inaad soo daawatid si aan oo la qabsato halkeeda ayaa ka sii wadayna marka waxa ka codsanaa intaan muuqaalka u guda gelin muuqaalka like noo saar subscribe noo soo dhig si aad u gaano 7000 waxa uu inoo marayay qabashada qays dhanka kale waxaanu arkaynaa hani oo ku soo dhaweynaysa gurigooda saabir gudaha ayaa saabir la soo gelinaya waxaana la barayaa familka dhankaasna way ku casheynayaan halka kale waxaanu arkaynaa qays ay lookaan iyo wariir ay garaacayaan waxaanu la tusayaa sawiro ay ka mid yihiin sawirka abiis shiina iyo ninka uu lookaan hore u dilay waxaanu leeyahay ma taqaana raggan laakiin isaga waa uu inkiraya waxaanu leeyahay ma aqaan laakiin lookaan waa uu garaacaya waa uu ku qasbaya laakiin marka dambe uu qiranaya marka si fiican loo iqaabo lana garaaco waxa uu qiranaya dambiga waxaanu leeyahay waa la soo dirsaday rooble ayaana ii diray waxaanu celinayaa dib waxaanu tusayaa rooble iyo ninkan dilaalka marka uu dhulka rabay inuu gado rooble waa uu ka diiday aan dhulkan la gado maadaama ay dhaxal laakiin waxa uu leeyahay walaalka ayaa ii dirsaday inaan gado dadkii gadan lahaana waa haya rooble marka uu ka diiday waxa uu qays ku leeyahay ninkan sawir iga qaad ee koox laga siiyo qaysna waxa uu tagayaa shiina waxa uu tusayaa sawirka waxa uu nagu leeyahay shaqadan ayaa kuugu dambeysay odaygan u soo dhameeyaana la ogaan sababta loo dilay waxa uu dhahaysaa aana qabiil ayaa loo dilay dib noo soo celiyay waxa uu leeyahay aniga wax dambiga kuma leh waa la igu qasbay hadaan dili lahayn aniga ayaa la dili lahaa lookaan waa xanaaqaya waxa uu qaadanayaa baskoolada waxa uu leeyahay qofkaas magaciisa ii sheeg asagoo xanaaqsan waxa imaanaya galad waxa uu dhahayaa rooble allah aniga si fiican u aqaan lookaan markuu intaas maqlo waxa uu damcayaa inuu dilo laakiin galad waxa uu leeyahay u kaad aniga ay wax igu dhiman yihiin waa uu qabanayaa tookadiisa waa uuna garaacaya waxa uu weydiinayaa halka uu abtigiis jiro laakiin asagana waxa uu ma sheegayo waxa uu lookaan ku dhahayaa ninka aabaha dilay waa ninkan abtigiis asaga ayaana ii diray waxa uu rabaa inuu lookaan ka xanaajiyo ama labadooda uu isku diro laakiin galad baa uu xanaaqaya waa uuna iqaabaya isla markii waa la soo weerarayaa kuwaana waa ay kala cararayaan xabadaha mid ka mid ayaa ku dhacaysa qays waxaanu arkaynaa inay yihiin shiina iyo asxaabtiisa qaysna waxa uu ku dhawaaqayaa xabad ayaa shiina igu taala ee badbaadi lookaan iyo galad meesha waa ay ka cararayaan halka wariiri ay rasaasta ka dhammaanayso markuu soo baxana waa la dilayaa qaysna waxa uu shiina ku leeyahay badbaadi waa dhaawacanahay laakiin isagu ma uu jixinjixayo waxa uuna weydiinayaa نمك ما حوشكت waxaan u sheegin isaga oo ku dhawaaqaya shiina ha iga tagin waa uu ka tegayaa waxa uuna wacayaa oday rooble waxa uu u sheegayaa in qays la qabtay waxa uu weydiinayaa inuu wax sheegay laakiin isna waxa uu sheegayaa inuu dhahay waxba ma sheegin waxa uuna ku leeyahay yaa waa dadka watay isna waxa uu sheegayaa galad iyo asxaabtiisa inay yihiin waxa uu ku amrayaa inuu u dhameeyo asna uu soo baxayo qays waa la dilayaa oday rooble qayskiisa waxa uu sheegayaa in arin muhiim jirta ayna laazim tahay inuu baxo uu soo laaban doono waxa ay weydiinayaan in wax dhiba jirto isna waxa uu sheegayaa wax dhiba inaysan jirin arin iska yar inay tahay uuna baxay waxa uu sheegayaa in mar kale ay si fiican u casheen doonaan cidda uu indhaha taagaysana waa uu ka tegayaa waxa uu tegayaa meesha uu ku xirnaa afrax waa uuna soo wadayaa laakiin nasiib xumo marka uu dhexda marayo waxa qabanaya ciidamada waxayna ku qasbayaan inuu isdhiibo laakiin isaga nasiib xumo inta ciidamada qaban waa uu isdilayaa inay badbaadiyaan ayay damcayaan laakiin way ka gaari waayeen bilooyin kadib waxaanu arkaynaa lookaan oo lasoo xiray daahir oo xabsiga laga sii daayay iyo farxaan oo iskuul la geeyay oo faraxsan iyo duniye iyo galad oo is aroosay xeebta ku baashaalaya filimka halkaas ayuu ku egyahay meel xun ayuu filimku ku dhammaaday saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like noo saartaan kanalkana subscribe noo dhahdaan waxaanu bilaabi doonaa filim qulaaseen insha Allah aad iyo aad ayay ugu mahadsantihiin inta muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ka kulmayno sidaas iyo nabadgelyo bye bye